magaalada Maka waxa ku tala galay inuu iska soo cimraysto casri al-jaahiliya wala cimraysan jiray waayo xajka iyo cimrada iyo waa diintii Nabi Ibrahim ka tagay nin la yiraahdo Tufayl ibn Amr ad-Dawsi Tufayl ibn Amr qabiilka Daws la yiraahdo ka dhashay oo Yaman iyo xaggan degi jiray Tufayl ibn Amr wuxuu ahaa nin gabyaa ah oo xakiima oo oday u ah tolkii markuu ku soo socday ayaa dacaayadii badnayd ee Maka ka soo baxaysay ayaa raadaysay reer Maka dacaayad iclaan caalami bay bixiyeen oo ah magaalada in waalana joogo ama uu joogo magaalada nin wax sixra oo afka haduu kula gaaro adiga iyo reerkaaga waa kala tagaysaa yaatana waxaan sidii yiri ninka warkiisa haba dhageysanine dhagaaba ka sii furayso cud buu goosto labada dhagood buu sii furaystay iyadoo dhagu ii furaysay imaan soo galay buu leeyahay magaalada Maka kadibna waxaan sidii warni weyn oo aqli loo garaad laba tahay waxa saniya waxa xunna waad kala garanaysaa maad furta iska saarti oo hadduu ninkani wax wanaagsan sheegana waad arkay waxuna hadduu sheegana waad arkay furta iska bixiyay buu yiri dabeetana nabigu alayhi salaatu wasalaam nabigu diintu soo bandhigay oo islaamo Tufayl ibn Amr markuu islaamay wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisa hadaba idir hadduu islaamay laakiin wuxuu dareemay in isna mas'uuliyadi fuushay hadda oo yahay shaqada tan inuu qaybtiisa qabto cilmi intuu dhigtay deemaantii iyo shalay buu la joogay tan buu joogay laakiin wuxuu dareensan yahay mabda'an inuu yahay mabda' loogu talagalay dunida oo dhan diinta tani wuxuu dareensan yahay inuu isna xilka xambaaro oo dadkii ka dambeeyay u gaarsiiyo tolkii buu dib ugu noqday dabeetana diintii buu isna u soo bandhigay baa laga dhageysan waayay uu ku waday waa laga akhrisan waayay markii laga akhrisan waayay isma oranin warkuwani waa duul habaar qabayaal adaba dantaada iska raacday adigu u sheegtay iyaga diiday ee wali wuxuu tijaabinayaa mas'uuliyad inay saaran tahay dabeetana nabi maxamed uu ku soo noqday calayhi salaatu wassalaam markuu yimi wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisiyo Daws way diideen ee waxaan ka codsanayaa ka baryayaa inaad habaarto ilaahay aad weydiisan nimanka reer Daws inuu inkaar ku rido balaayo ku dhacdo nabigu alayhi salaatu wasalaam gacmuhu taagay markaa inagu waxaynu koobacnay xilli ducada ugu badan aynu maqalay tahay ilaahay uu yahuudiya kristanka iyo gaalada halaag laakiin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam markuu gacmaha taagay wuxuu ka bilaabay Allahumma hdi Dawsan xadiiska Bukhari ku yaala ilaahay uu reer Daws soo hanuuni maalina ma tiraahdan ilaahay ingiriiskan hanuuni qof muslima ku ducaysay meeleedii ilaahu kuwan diinta ku dar qof yiri nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha cirka u taagay ayuu xuleeyay Allahumma hdi Dawsan ilaahay uu reer Daws diinta bar oo ay hanuunaan oo diintu qalbigooda gashaan Tufayl ibn Amr ad-Dawsi dib uu noqday haddana mar kale ayuu tijaabiyay inuu dadka diinta ugu yeero waqti yar kadib uu soo noqday isagoo wada 78 raga oo ay ka mid yihiin muslimiinta taqaanin kuwa ugu macruufsan ninka inta yar nabi maxamed la joogay baa keenay bale xadiiska ugu badan ninka weynaga soo gaadhay Abu Hurayra sama wada taqaanin Soomaalida waxa kitaab Abu Hurayra laga wayda kitaab maaha Abu Hurayra dos ama Tufayl ibn Amr ad-Dawsi baa keenay isagoo wada dabeetana Abu Hurayra wuxuu ku takhasusay inuu nabi maxamed 3 sanadood habeen iyo maalmo iska daba socdo meel la aanu qabanin uu galo dawraad mukaffafa intensive courses oo 3 years 3 sanadood waanu meel la uga bixin habeen iyo maalin baa inuu wax barto oo xifdiyo diinta tan shankuno xadiis wax ka dhow ama ka badan baa inaga soo gaaray yani waxaan leenahay mas'uuliyadu dareemay Tufayl ibn Amr ad-Dawsi waxay keentay inay ku asaxdo xadiiskii nabiga maxay ahaa rubba muballighin aw aamin saami' waxa la arkaa buu nabigu yiri mid la gaarsiiyay inuu ka weelayn badan yahay kii dhageystay Tufayl iyo Abu Hurayra ya soo horeeyay Tufayl ma ku islaama Abu Hurayrana ma wuxuu islaamay ghazwatu Khaybar markii lagu sii socday sanadkii 7 ee hijriyada meelahaasi haddana imisa maqashan Tufayl ibn Amr xadiisi wariyay imisa Abu Hurayra maqashay xadiisi wariyay
يعني وقف dareemay inuu mas'uuliyad xambaaro waxaan leenahay ummadii muslimiinta ee nabiga la noolay alayhi salaatu wasalaam مثلا أبو ذر الغفاري صحابي قال له رنجري سيقول دين رادي سو مكيمي واكا شاقانا ينو ربع الإسلام يهي إنه قفكي صدحا أفراد إسلام ويهي علماء الحديث لكن وحيلا يندد بدنا قرصونا كهرية بحجرة على كل حال وقت آن إسلامكم معروفة هاي المكابو صاقلك سيقول دين رادين إياه علي بن أبي طالب والله كل ما وأركين كان قريب كأي مقالة شوقة مركو ويديين ورمي قضيته سيدي مركا حساسي جوا هيدا علي وحو كيري الدبقل دبتنا علامات بانكو تصينيا هداد علامات داسي أركته وحويان الباب كي النبي محمد ميشو شوقي عليه الصلاة والسلام وخطر اسكراف يعني النبي محمد أركته الله هذا شابه دنبيا ولقو ودي ليا مركا وحو ليا هدي وكان اسميشي كتيرنا علامات بانكو تصين هو تسوقلي haddii waanu meeshu ay miinaysan tahayna calaamad kale aan ku tusin oo wada dhaafi wad iska socon laba nin oo wada socon oo kale inuu iska dhigayna Abi Dhar sidii uu ku soo dabagalay dabatana calaamad baa la tusiyay inuu nabigu u tagi karo nabi maxamed buu yimid alayhi salaatu wasalaam diintu nabigu soo bandhigay markuu nabigu diinta soo bandhigay ayuu nabigu wuxuu ku yiri waad aragtaa xaaladaan ku noolay siday tay ilhaq biqawmik fa idha balagaka dhuhuri fatini tolka qababo ku yiri maka waad aragtaa duruufta qofka ila kulmay la tumayo qof kala daayay marka meeshii reerkiinu deganaa iska qabo oo nin reer bani Ghifaara marka aad maqasho inaan guuleystay uni kaalay buu ku yiri nabigu alayhi salaatu wasalaam Abu Dhar waa ka soo noqday nabiga laakiin wuxuu dareemayaa in isna mas'uuliyad saaran tahay horta intaanad la gaadhin buu isii reer bani Ghifaar maad quraysh kaga dhex dhawaaqday tawxiidka intuu yimi naadiga quraysheeda kacbada agtiisa ahayd ayuu dhagaa isqabtay isagoo tawxiidka ku dhawaaqaya dabeetana quraysh waaba yaabtay war muxuu hawiilkan yare naadiga quraysheed waxaan kaga hadlayaa gacanta loo qaado waa la tumay iyadoo la tumaya waxa ku soo baxay Abbas ibn Abd al-Muttalib dabeetana wuxuu yiri war ninkana garaacisaan ma garanaysaan may baa leeyay waa nin reer bani Ghifaara حاجة سفر كي نمري بيجي قريش بايع مشتري بيهي تجارة دو وحي حاجة وقوي كي مادة الشام يدل كاسي يردن دم بيسومري شرين وحي إنديا يردن كي مادة حاجة يمنات صار مرانا وده يسومري شر رحلة الشتاء والصيف لما سافروا منا حاجة كي مادة منا وينتر كي مادة بيلهاي لو تجارة ده كان مركز شام قبطة وضد أي مران أيو قبيل كذي دجاه بني غفار لا يرادا عقلك منطقي أي فهم يصير قريش بكل أحد ليه وحلايه هاي حاجة دقالي إنه سو شقين دونا دقالي إنه هذي إن غير بني غفار ديشان مرين كان لا يدين فارسانه يعني تعلق قاعد ما كان ولا سكتي أبي در الله تومي اسمه أوران سكتة جوه يصيري والملا شقادي سيفي عن ولي ومات جدا دلني يراد وحمي كحماس بدنته وأنا دلني يراه برينا كعلي بوي بريتدي بوي ما وكعلي markaas hadana la tumay Abbas kiba hadana Ilaahay ku soo saaray wararkan wankii reer baro Ghifaar tumaysan baa iskaga tagay wuxuu yiri wali ma aha ku celi maalin saddexaad baa hadana ku celi hadana waa la tumay Abi Dhar iska tagay akhiran tolkiibu diintii uu soo dhageystay buu tolkii uu la tagay wuxuu nabiga u yimi alayhi salaatu wasalaam isagoo nus wada qabiilka gabigiisa baa nus isagoo wata hadana dib uu noqday wuxuu la yimi isagoo qabiilka nuskii kale iyo qabiilka loo ilmaadariyiin oo aslan la yiraahdo wada waa ka xadiidkii Bukhari nabigu alayhi salaatu wasalaam Ghifaar ghafara Allah laha reer bani Ghifaar ilaahay dambigooda ha dhaafo nabigu alayhi salaatu wasalaam wa aslam salamaha Allah reer aslamna Allah nabadgaliyo ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam ku ducaynay يعني وحي أهاين مسؤولية وحو دريمي قفكو إنو إسلامه وهو شهاته وحو دريمي إنحل دين تتنكسارنته بل وحا سوى أروري إنو الرقب النبي عليه الصلاة والسلام هشيس كلا قليي
وعلى قومك إنه لها إما كو إسلام ونبي هشيس لجليا ده ترى طال كان هشيس كوقعد النبي لها وكي الضمام الأزدي وحوا هانين والله شينكو دك رجال قليا وحكوا طفطفة ده تنوح مغلى نيو عالم بمكتشوجا إلا دعاية دي وفافتة دعاية هذه ميديا لقات ربض يود وفافسة حد ما لقارسي دتك عربية كلا يفهم النبي محمد نيو عليه يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون تقرأه سهرت وحين مقالة سواق قلي دبتنا وحنا نقول وربلنا كان والنا شيء سنية الماما وحرام طفطفاية بلوام وحقوا آخرية وإنت سوى عافي ما ضايع نبي محمد ولا هادين هي وحقوا طفاه مقالة أنا بقول دبتنا نبي قوي عليه الصلاة والسلام دبتنا وحولي محمد وحن مغلينا حنوسنا يسوع أنا قلنا الضبيلا وحبان كتفها دي ما حيكون لهم مغطينا كتفها هدي هذيك صار له قولنا قبل ما حد سمع له هنا دجالان تابي كل دوان له لكن النبي عليه الصلاة والسلام مسؤولية بحمار سنة إنه دتك الدين تجارسيه ولذلك بوح بلاوي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا بوح بلاوي خطوة الحاجة تقانيه هو دقيستي ضمام الأزدي تنوح أعدها علي يقول علي مركله مركز النبي يقول علي تنوح يقول أعدها علي مركله كعلي كاسو مرصد حد كعلي لبا وحبا علماء دويت الماما هدين والنا كلها الله أو وحخريه أتري هذا كعلي ما حد كفليسه لأنه هذا ملك هلك بحصو ما إلا وندا وخسره نوالنا دور أخريه ضلضلات هذا بل كسو علي وحياتري وما بدنا إنه ده كعلي كره هذا هذا كسو علي وأمرك الله بعده وركن أو شيء ما هور ويقاني بنيك كاني وركي كاهن كإياه الشعراء إياه قبيق إياه وحماها وهو التوحيد إياه إلهي ما هد نقيسك والرمية لا تنوي إسلامي نبي هشيس بولا قلي بيعة حديث صحيح مسلم كويا لي بيعة دوح النبي وكولا قلي وعلى قومي كلي ما هي هذيك إياه قوم كابا وحنتنو قد شيء داونين إنه فهمنا هالمسألة maxaa dhacay ee saxaabadu dunidan aynu maanta ku noolahay ee muslimku degan yahay diinta u gaarsiiyeen waxay u gaarsiiyeen baan leenahay kow mas'uuliyad bay dareemayeen ka saaran kalimatu tawxiid marka uu ku dhawaaqo ma saxaabadii insiga ahayd oo qura ma xataa waa kuwii jinka ahaa oo jinkuna inuu dacwada xambaaray saynu u goran karnaa rabbu samaawaati wal ardi ba ka waramay ilaahay wuxuu ka waramayaa nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam jinkii u yimi ee islaamay markii ay islaameen baynayna dacwadaasi xambaareen oo ay gaarsiiyeen maxay qoomamkii ka dambeeyay wa sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirin falamma qudiya wa yimaadeen markay u yimaadeen ansitu bay dhahdeen war balaamusa dhageysana waxa la akhrinayay markay dhageysteenna الدمومنت إلهي وحلاي فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين مركو النبي قدام عليه الصلاة والسلام وركي وشاقي القرآن كي وآخرين يو دقيستين وحي كل عبتين تلكود يقود دقية ومحيله قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى تلك يا وحانو مغلي كتاب سود دقي كي نبي موسى قداشي كتاب كلو كدام بيبانو مغلي وكو يريه وحي نبي موسى وودينا شيغيا حقنا ضدك كو هرونينيا iyo jidka toosan ilaa ka yiraahdo ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bi talkayo rumay yani waxaan leenahay waxa astaan ahayd mujarrad qofku inuu ashahaato mujarrad inuu tawxiidka qira inuu dareemayay mas'uuliyad inay ka saarantay diinta inuu xambaaro quraanku wuxuu ina barayaa mas'uuliyadani waqti inta lag bay saaray وحين بريا أنبياء وقابك وحنبارين إنها إن شقادنا هي شقاء أنت ينولين أردن وظيفة العمر إنها هي ولذلك في القرآن كوحك ورمي يا نبي نوح إني دعوت قومي ليلا ونهارا نبي نوح عليه وحندتك الدين تووية ري طالكي هبين إيا مالين بوقت جمح صهري هبين إيا مالين بويري يبولي وحكى له النبي يسوق هبين إيا مالين بيري أي قرآن كوحة المامية إلا بيني هذا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا قفك بني آدم كاي
waxyar dadku waxa la yidhi space ma jiro marka waxaa la doonayaa xoogay horay inaan loo soo kala durko si walaalihiina bannaanka taagtaagan ay boos yar baa u helaan masaajidkii baa cidhiidhayna waa marka idinkoo raalliya wax yar horay usoo sekada insha allah. qofka bini aadamkii haddii warkiisa la aqbalo nashiid buu noqdaa, activity ka sii qaadaa. markaad dad u yeedhee wax sheegtee lagu aqbalo waxaad noqonaysaa qof nashiid ah. laakiin haddii lagu dhagooleeyo cidiba ku aqbali weydo bini aadamka waxaa lagu yaqaanaa inuu inta badan maxay inuu niyad jabo. nebi nuux wuxuu leeyahay habeen iyo maalinba waxbaan sheegayay, haddana wax sheegaygii wuxuu keensadun in layga sii cararo. iyadoo sidaa looga sii cararayay ayaa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa inuu isku dayay usluub kasta oo bini aadam uu adeegsado oo wax loo sheego. uma innii dacawtuhum jihaaran uma innii aclantu lahum wa asrartu lahum israara. ilaahay buu leey kor iyo hoos iyo faqid iyo nooc walba oo bini aadam wax loogu sheego waan isku dayay buu leeyahay inaan wax ugu sheego. muddadu intay leekay qur-aanku wuxuu tilmaamayaa 1000 sanatin ilaa 50 caama. shaqadaasi ah inuu maalin iyo habeenba waday, usluub kasta oo wax loo sheegay inuu waxu sheegayay. muddada uu waday time periodku warkaasi waday waxa weeyaan maxay 950 sannadood uma sida waday buu leeyahay. inagu imisa inuu muslim ahay, imisaad se dad diin ugu yaadhay. weli ma dareentay inaad muslim tahay inay xil ku saarayso inaad dadka diinta ugu yeedho? mise waxaad salaaydaa fulaan baa magaalada jooga iyo sheekh cilaan wadaadaa jooga ama kan baa jooga. dadkan hore waxaasi ma yaqoonin, waxay yaqaaneen inay islaamaan. walidaalika baa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyadu dadka diinta waxay ugu yeedhayeen duruufta nololeede kasta ee lagu noolyahay. qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi maxbuus ah oo xabsi ku jira oo haddana isagoo la dulmiyey oo madluuma oo maxbuusa oo aan wadankiisii joogin oo meel aan laga garanayn jooga, haddana inaanu marnaba hilmaamin oo ilaabin mas-uuliyadii inay dadka ka saaran tahay inuu diinta gaarsiiyo. wadakhala macahu sijna fatayaan. qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebiyullaahi yuusuf laba wiil baa xabsiga la galay. qaala axaduhuma innii araanii acsiru khamra. midkood labadii wiil wuxuu yidhi waxaa layskay tusiyey riyo, yacni waxaan ku arkay isla anigii oo khamri casiraya ama khamri qooshaya ama majuujinaya ama wada ayaan arkay buu leeyahy. kii labaadna wuxuu leeyahy iyadoo waxaa layskay tusiyey iyadoo aan madaxa ku sido khubus, kimis, roodhi, jabati, waxa anigoo madaxa ku sida oo shimbira ka dul cunayaan. nabi'na bitaawiili innaa naraaka min almuxsiniin. sharaxeeda nooga warran bay leeyihin, noo fasir. waxaanu ku arkaynaa dadka wanaagsan inaad ka mid tahay. laba shayba u fiirso. waxay weydiisanayaan inuu wax u kordhiyo, laakiin maxay u weydiisanayaan isagoo maxbuusa oo boqorku soo xidhay oo aan qabiilkan ka dhalan oo waxba la wadaagin oo waddankiisii joogin? waxay u weydiisanayaan, waxay leeyihiin qof muxsina baad tahay. waa qofka muslimkaa dhaqanka lagu yaqaano. qofka muslimka ahi waa samajiri, waa muxsin, waa qof wanaagga ka shaqeeya. xataa qur-aanku wuxuu inooga warramayaa nebi yuusuf boqorkii soo xidhaya gaalka ahaa markay u baahdeen aqoontiisii inuu ku caawiyey. nebi yuusuf oo xabsiga ku jira waa kii boqorku riyooday, riyadii wax fasire la waayey. markii loo yimi muu odhanin war naga taga waa idinkeena xidhay, xabsi abaanu idinku jirnaa maxaa riyadiina daba dhigay. kuma odhanina wuu u fasiray, wuu u sheegay. bale wuxuu u dejiyey oo uga warramay khito 15 sannadood ah oo dhaqaalaha waddanka lagu badbaadinaya gaal iyo muslima. dhaqaalaha waddankan boqorkan xukumo qaabkii loo badbaadin lahaa buu uga warramay. idan muxsin buu ahaa. nebi yuusuf jaaniska markuu helay muxuu sameeyey? qaala laa yaatikumaa طacaamin turzaqaan ilaa naba'tukumaa bitaawiilih. wuxuu leeyahay awalan wuxuu tarkiisinayaa si fiican u rabaa inuu uga dhaadhiciyo inay meeshii ku habboonayd su-aasha in la weydiiyey inay yimaadeen. wax raashinaydayn ma imanayaan buu yidhi ilaa iyo waan idiin sheegayaa ta'wiilkiisa. weliba wuxuu leeyahay dalikumaa mimaa callamanii rabbi. arrinka kani wuxuu ka mid yahay waxyaabaha rabbiga i baray. dabeetana intaanu fasirin ayuu wuxuu ka warramay muhiimaddii uu u noolaa oo ah dadka inuu tawxiidka gaarsiiyo. innii taraktu millata qawmin
laa yu'minuuna billahi wahum bilaakhirati kaafiruun. wuxuu bilaabay intaanu waxba fasirin jaaniskaa yare loo baahday ayuu rabaa inuu dacwadiisa dhiibto. waxaan ka imi buu yidhi duul aan ilaahay iyo aakhira toona rumaysnayn. watabactu millata aabaa'i ibraahim, waxaanan raacay miladii iyo diintii aabbayaasha iyo nebi ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub ay haysteen. waana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu galladaystay oo ah inaanan ilaahay cidnaba ugu shirig yeelin. kadib buu iyaga haddana su-aal weydiinaya, wuxuu leeyay yaa saaxibaya sijn aarbaabun mutafariquuna khayr am illaah alwaaxid alqahaar. war labadan maxbuusow buu leeyahy, ma rabbiyo badan in la caabudaabaa khayr badan mise allaha kelida ah subxaana wa tacaala. markaasuu haddana wuxuu u tilmaamaya waxay caabudi jireen inuu baatil yahay. maa tacbuduuna min duunihi ilaa asmaa'an samaytumuuha antum wa aabaa'ukum. kadib wixii uu u noolaa oo ah inuu diinta dadka gaadhsiiyey markuu shaqadaa gutay ayuu wuxuu uga jawaabay su-aashoodii yaa saaxibaya sijn. markaasuu u sheegay in midkoodna ama axadukumaa fayasqii rabbahu khamra wa ama alaakharu fayuslab. markaasuu ka jawaabay su-aashii. maxaan uga dan leeyahay? waxaan uga dan leeyahay inaynu dareenno inagoo xor ah oo dhaqaalo haysanaa oo wax walba haysanaa oo awoodna inaynu dadka diin u sheegno ayuunba afka layna xidhay oo inan rumaysnayn inaad mas-uuliyaddani ku saarantay. aad rumaysantuun adigu wallaahi haddaad 5 salaadoodba tukatay oo soontay muslim dee ka koowaad baa tahay baad rumaysantay. maahe nebi maxamed wuxuu leeyahy allahuma hal ballaqtu dadku lahaa unbaad ku jirtaa. ilaah waan gaadhsiiyey markhaati ka ahaw. waxaad ku jirtaa un dadka aakhiro la odhanayo maxaa dadka kale ku samayseen ma gaadhsiiseen idinkuna. ila risaaladii ilaahay samada ka soo diray dad oo dhan loogu talagalay. inta madmadow iyo carabta looguma talagelin, bashar oo dhan baa loogu talagalay. ayaad rumaysantahay oo sidaa. haddana ma awoodid inaad deliver garaysid, inaad dhiibtid ma awoodid. magaalada maka waxaa ku talagalay inuu iska soo cimraysto. casriiljaahiliya waa la cimraysan jiray, waayo xajka iyo cimrada iyo waa diintii nebi ibraahim ka tegey. nin la yidhahdo tufayl ibnu camr iddawsi. tufayl ibnu camr qabiilka dawsa la yidhahdo ka dhashay oo yaman iyo xaggan degi jiray. tufayl ibnu camr wuxuu ahaa nin gabyaa ah oo xakiima oo oday u ah tolkii. markuu ku soo socday ayaa dacaayadii badnayd ee maka ka soo baxaysay ayaa raadaysay. reer maki dacaayad iclaan caalamiya bay bixiyeen oo ah magaalada in nin waalani joogo ama uu joogo magaalada nin wax sixra oo afka hadduu kula gaadho adiga iyo reerkaaga waa kala tegaysaa. dabeetana waxaan sidhi buu yidhi ninkaa warkiisa haba dhegaysanine dhagaaba ka sii furayso. cod buu goosto, labada dhagood buu sii furaystay. iyadoo dhaguhii furaysay imaan soo galay buu leeyahy magaalada maka. kadibna waxaan sidhi buu yidhi war nin weyn oo caqli loo garaad labaa tahaye, waxa san iyo waxa xunna waad kala garanaysaaye maad furta iska saartid. oo hadduu ninkani wax wanaagsan sheegana waad arki, wax xun hadduu sheegana waad arkaya. furtaan iska bixiyey buu yidhi. dabeetana nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam. nebigu diintu u soo bandhigay, wuu islaamay. tufayl ibnu camr markuu islaamay wuxuu leeya ilaahay rasuulkiisiiyo haddaba idir. hadduu islaamay laakiin wuxuu dareemay in isna mas-uuliyadi fuushay hadda oo uu yahay shaqada tan inuu qaybtiisa qabto. cilmi intuu dhigtay dee maanta iyo shalay buu la joogay, intan buu joogay. laakiin wuxuu dareensan yahay mabda'ani inuu yahay mabda' loogu talagalay dunidoo dhan diinta tani. wuxuu dareensan yahay inuu isna xilkaa xambaaro oo dadkii ka dambeeyey u gaadhsiiyo. tolkiibuu dib ugu noqday. dabeetana diintiibuu isna u soo bandhigay. waa laga dhegaysan waayey. wuu ku waday waa laga akhrisan waayey. markii laga akhrisan waayey isma odhanin waar kuwani waa duul habaar qabayaale haddaba dantaada iska raaco dee adigu u sheegtay iyagaa diiday. ee weli wuxuu tijaabinayaa mas-uuliyadii inay saaran tahay. dabeetana nebi maxamed buu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam. markuu u yimi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow daws way i diideen, ee waxaan kaa codsanayaa kaa baryayaa inaad habaarto ilaahay aad weydiisan nimankaa reer daws inuu inkaar ku rido, balaayo ku dhacdo. nabigu calayhi salaatu wasalaam gacmuhu taagay. markaa innagu waxaynu kobocnay xilli ducada ugu badan aynu maqalla ay tahay ilaahay uu yuhuud iyo kristanka iyo gaalada halaag. laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu gacmaha taagay wuxuu ka bilaabay allaahumma hdi dawsan. xadiidka bukhaari ku yaalla. ilaahay ow reer daws soo hanuuni. maalinna ma tidhaahdeen ilaahay ingiriiskan hanuuni. qof muslima ku ducaysay miyaa leedii?
ilaahu kuwan diinta ku dar qof yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha cirka u taagay ayuu wuxuu leeyahay allaahuma hdi dawsan ilaahayow reer daws diinta bar oo ay hanuunaan oo diintu qalbigooda gashaa طفيل بن عمرو الدوسي dib buu u noqday haddana mar kale ayuu tijaabiyey inuu dadka diinta ugu yeedho waqti yar kadib buu soo noqday isagoo wada 78 raga oo ay ka mid yihiin muslimiinta aad taqaaniin kuwa ugu macruufsan ninka inta yar nabi maxamed la joogay baa keenay bale xadiidka ugu badan ninka uu inaga soo gaadhay abaa hurayra sama wada taqaaniin سبحان الله حنا كتاب أبا هريرة لقى وايدا كتاب معها أبا هريرة الدوس طفيل بن عمرو الدوسي بقى كان يسقى وضع دبتنا أبو هريرة وحكو تخصصي إنه النبي محمد صدح سنة ده بني مال مسك ده بصعده ما إلا أنا قبرنين وقالوا دورات مكثفة intensive courses أو 3 years صدح سنة ده وأنا ما إلا وقبحين هبين إيه مالين باينه وحبرته أو حفظية دين تتاني shan kun oo xadiis wax ka dhadhow ka badan bay naga soo gaaray yani waxaan leenahay mas'uuliyadu dareemay Tufayl ibn Amr ad-Dawsi waxay keentay inay ku asaxdo xadiiskii nabiga maxay ahaa rubba muballighin aw aamin saami' waxa la arkaa buu nabigu yiri mid la gaarsiiyay inuu ka weelayn badan yahay kii dhageystay Tufayl iyo Abu Hurayra ya soo horeeyay Tufayl ma ku islaama Abu Hurayrana ما وحو إسلامي غزوة خيبر مركي لوسي سعودي سنة كي تضبادة هجرية دا ميلا هاسي هدانا إمسا مغشان طفيل بن عمر حديث وريه إمسا تسابة هريرة مغشان حديث وريه يعني وقف دريمين ومسؤولية حنباره حلانا يومدي المسلمين تي النبي قال الله عليه الصلاة والسلام مثلا أبو ذر الغفاري صحابي قال له رنشري isagoo diin raadisu ma ka yimi waa ka sheeganaya inuu rubcul islaam yahay inuu qofkii saddexa afraad islaamo u yahay علماء الحديث لكن waxay leeyeen dad badan oo qarsoon ku horeeyay baa jira ala kulli xaal waqti aan islaamku macruuf ahayn makabu soo galay isagoo diin raadinaya Ali ibn Abi Talib la kulmay oo arkay ninkan qariibka ee magaalada jooga markuu weydiiyayna wuu waramay qadiyadu siday markaa xasaasiga u ahayd Ali wuxuu ku yiri idabagal dabeetana calaamad baan ku tusinayaa haddaad calaamadaasi aragto waxa weeyaan albaabkii nabi maxamed meeshuu joogay calayhi salaatu wasalaam waa khatar iska dhaaf yani inaad nabi maxamed aragto la hadashaaba dambiya oo lagu dilaya marka wuxuu leeyahay haddii uu jaanis meesha ka jirana calaamad baan ku tusin oo waad soo gali haddii aanu meeshu ay miinaysan tahayna calaamad kale aan ku tusin oo waad dhaafi waad iska socon laba nin aan wada socon oo kale inuu iska dhigaynaa أبي ذر سيدي بكسر دبقلين دبتنا علامات بلا تسيين والنبي جو تجي خير النبي محمد بوجي عليه الصلاة والسلام دين تو نبي جو صابر نجاي أركو النبي جو دين تو صابر نجاي أيو النبي جو حكوا لواء درك حالة دانو كنا ولا يسديتي الحق بقومك فإذا بلغك ظهوري فأتني تلقى قبابو كوير مكوا دركته ظروفته قفك إلى كل ما يلا تومي قفك للداية marka meeshii reerkiinu deganaa iska qabo oo nin reer bani Ghifaara marka aad maqasho inaan guuleystay uu kaalay buu ku yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam abadar waa ka soo noqday nabiga laakiin wuxuu dareemayaa in isna mas'uuliyada saaran tahay horta intaanad la gaadhin buu isii reer bani Ghifaar maad Quraysh kaga dhex dhawaaqday tawxiidka intuu yimi naadiga Quraysheeda Kacbada agtiisa ahayd ayuu dhagaa isqabtay isagoo tawxiidka ku dhawaaqaya dabeetana Quraysh waaba yaabtay war muxuu ahaa wiilkan yare naadiga Quraysheed waxaan kaga hadlayaa gacanta loo qaado waa la tumay iyadoo la tumaya waxa ku soo baxay Abbas ibn Abdul Muttalib dabeetana wuxuu yiri war ninkan garaacisaan ma garanaysaan may baa leeyay waa nin reer bani Ghifaara ee xagee safarkiinu maray buu yiri Quraysh baa mushtar bay ahayd tijaaradoodu wixii xagga waqooyi ka yimaada iyo Shaam iyo dhulkaasi oo dhan bay soo mari jireen wixii Indiya iyo dhanka ka yimaada xaggan Yamaneed soo maraana waday soo mari jireen rihlata shitaay wa sayf laba safaro midna xagaaga yimaada midna winterka yimaada bay lahaayeen oo tijaarada keena
kan markaa shaam qabtaa wadada ay maraan ayuu qabiilkani degaa bani khifaar la yidhaahdaa caqligii mantiqii ay fahmaysay qurayshibu kula hadlaya wuxuu leeyahay xagee dhaqaalihiinu soo u shaqayn doona dhaqaalihiinu haddii nin reer bani khifaar aad dishaan marinkaa laydiin fadhiisane gacantaa laga qaaday markaa waa la iskaga tegey abidaroo la tumay isma odhan iska tegay wuxuu is yidhi war malaa shaqadii si fiican weli umaad gudan dhallinyaradu waxbay ka xamaas badan tahay waa nin dhallinyaro ah berina ku celi buu yidhi berritadiibu ima uu ku celiyey markaasaa haddana la tumay cabbaaskii baa haddana ilaahay ku soo saaray war ninkani waa ninkii reer banu khifaar aad tumaysaan baa waa iskaga tagay wuxuu is yidhi weli ma ahee ku celi maalin saddexaad buu haddana ku celiyey haddana waa la tumay abidar wuu iska tegey akhiiran tolkii buu diintii intii uu soo dhegaystay buu tolkii ula tegey wuxuu nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo nus wada qabiilka gebigiisii baa nus isagoo wata haddana dib buu u noqday wuxuu la yimi isagoo qabiilka nuskii kale iyo qabiil kaloo ilmaadeeriyiin oo aslam la yidhaahdo wada waa ka xadiidkii bukhaari nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam khifaar gafara allahu laha reer bani khifaar ilaahay dembigooda ha dhaafa buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wa aslam saalamaha allah reer aslamna allaha nabadgeliyo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku ducaynayay yani waxay ahaayeen mas-uuliyadda wuxuu dareemayay qofku inuu islaamo oo waa shahaato wuxuu dareemayay in xil diinta tan ka saarantay bal waxaa soo arooray inuu ragga badh nabigu calayhi salaatu wasalaam heshiis kula gelayay waa calaa qawmiki inuu lahaa imikuu islaamo nabiga heshiis la gelaya dabeetana tolkaana heshiiska u qaad buu nabigu lahaa waa kii dimaam alasdi wuxuu ahaa nin qoladan jinku dadka u galgaliya wax ku tuftufa dabeetana wuxuu maqlay nin waalan baa maka jooga ilaa dacaayadii way faaftay dacaayadda haddii media laga tira badiyo dee way faafaysaa xad baa la gaadhsiiyey dadkii carbeeda kale ay u fahmaan nabi maxamed inuu nin waalan yahay yaa ayuha alladii nuzila calayhi dikru innaka la majnuun qur-aan ku soo arortay wuxuu yidhi magaaladan soo galay dabeetana waxaan idhi buu yidhi war bal ninkan waalan ay sheegaysaan ii tilmaama waxbaan tuftufaaye bale waan wax ku akhriye waa intaasaa u caafimaadahay nabi maxamed buu la raadinayaa inuu wax ku tufo magaaladaani buu yidhi dabeetana nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi maxamedo waxaan maqlay inaad xanuunsanayso aniguna dabaylaha waxbaan ku tufaa dee maxay kuula muuqataa inaan kugu tufo haddii adiga saa lagula dhaqmo maxaad samayn lahay inaad dagaalantaa bay ku dhowaan lahay laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyad buu xambaarsanaa ah inuu dadka diinta gaadhsiiyo walidaalika buu wuxuu bilaabay in alxamda lilahi naxmaduh wanastaciinuh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wuxuu bilaabay khudbat alxaaja taqaanii u dhegaystay dimaam alasdi dabeetana wuxuu yidhi aacidhaa calaya iigu celi mar kale markaasuu nebigu ku celiyey dabeetana wuxuu ku yidhi aacidhaa calaya mar kale ku celi markaasuu mar saddexaad ku celiyey laba waxba culammadu way tilmaamaan haddii nin waalani kula hadlo oo wax akhriyo aad tidhaahda ku celi maxaad ka filaysaa dee inu haddana meel kale ka baxo soo maaha ila wanida waqsanaya nin waalani hadduu war akhriyo daldalo aad tidhahda bal ku soo celi wixii aad tidhi uma badna inuu dee ku celin karo haddana tidhahda ku soo celi waa marka labaade warkan uu sheegay maaha war uu yaqaanayba ninka kani warkii kaahinka iyo shacarada iyo gabayga iyo waxa maaha waa war tawxiid iyo ilaahay mahadnaqiisa ka warramaya